بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال سيدي عادة نوحيد إلى المدعبة وحن مانتا هدنا عربنا إن اسبدل كجيبوتي كالسعودة أن وحيالك تعتابنو مانتا أو تاريختو بيش فبراير لباتن كيجي لبكون يصدح طبعا تاريخ المسيحية ولا ليال وحن مانتا كهالينا أرنا هرينا أنوغا تعتابناي on rabaa inaan si tafaariiqa aan uga taataabto dhibaatada maanta dalka Djibouti ka jirta oon jecel lahayna isbedelka waxaan u taageerayno waliba USA aan u taageerayno aan jecel lahay inay isbedelka ay wax ka bedelaan maanta walaalayaal waxaan daawanayay shabakada Jibtok kan ka daawanayay nin dhalinyaro ah oo cod laga soo duubay audio iyo video mu ahayn oo shaqo loo diray inuu u shaqo tago meesha ay dadkani kambanigan shiinuhu ay dhisaan inaad dareemaysaan mooye sida aan maanta aan u hadlayo wallahi walaac iyo nasiib daro calool xumo iyo walwal baan aad iyo aad uga qaado ka xanaxay yarkaayar oo intooyo dhowr meel loo diray isagoo ka tafaran uu nool ku iibsadana uu nool ku raacan haysan waa arin laga yaabo aniga markaa waxaa mas-uuliyadda saaran ay tahay dad kastoo reer Djibouti dibadda jooga ay tahay maadaama ay dadkeenii maanta ay haysanin nasiib inay si wanaagsan oo baxaar leh oo madax bannaan ay uga hadlaan maanta inaan isku qadin labada toddobaad ay dadku ay hadli karaan annagu laba toddobaad waxay ka dambeeyaan hadli karaynaa hadduu ilaahay nafta noo daayo iyaga dadka reer Djibouti taabaan jecel lahay marka yarka yar shaqo la'aanta meesha ka haysata iyo bahdilaad waliba la bahdilay uu ka hadlayay wixii soo maray uu ka hadlayay 12 ciyaal aan nahay buu ana curado oo buu waxaan jeclaan lahaa horta Jibtok daawada audioga shaqalaan baa laga hadlayay Djibouti shaqalaan Djibouti dhibaatada jirta dadka reer Djibouti waxaan u baahanay horta inaan mentality-geena aan bedelo ereyga mentality-ga ama mindset-ka Ingiriiska leeyahay sida ay dadku u fikiraan waa inaan bedelaa maxaa yeelay shaqalaanta Djibouti iyadaaba abuurtaba maxay ku abuurtaa waxaad arkaysaa dad dhalinyaro baa mushtar furtay gaal ay u yeedhanayaan gaal buu shaqo siinaya reer Djibouti ma shaqaystaan buu leeyahay waxaan xasuustaa walaalayaal haddaad Djibouti joogtay waa dareemaysiin oon aad uga yaabay naftayda qudhayda ah warshada caanaha mar waxaan joogay in la furo la doonayo gaal baa director laga dhigay France laga keenay waxaa la ii sheegay gaalka $10,000 baa bishii la siinay aqal bilaash baabuur bilaash jeegagii tuu ka wada dhacay jawhar iyo odayaal kale badan baa lahaa la yeeri warshada caanaha inay furtaan doonayeen maxay uga baahan yihiin inay gaal u yeedhaan nin dhalinyaro reer Djibouti ama gabar yar oo dhalinyaro reer Djibouti wax baratay baa shaqada qaban karta waxaan xasuustaa dhalinyar furtay association de transitaire gabar cad baa secretary ka dhigteen maalisha maalintaan u imiday waxaan ka yiraahdaa maxay gabadhan يا خادونا نقدر إننا أصحابنا هذا سوى في إنسان يا أخي نقدر أدونا وإحنا بضبط قشاو في الفرصة ورمنا نفرصة جيبوتي بركان جو وحيانا سكروا يدي بيجرين دل كوجي لقول لويقيا دد كوجي ويقيا دد كوجي بهدليا دد كوجي حبان كسوق قادين ودد كله يسكون معانينيا وحكى له حسوستا سفارة جيبوتي مريكا سفارة مريكا جيبوتي كنت أنا وقت قابل ما USA كلا شقي كونتراير وقابل وحنا الكدد الجانبه أو كارديوتراجي لو سمي وايو وإن شرع الله سميها تذكر Djibouti شقادة تذكر Djibouti شقين قبل كرين أو لقوا يا ما هنا إن لو أقلاده إن شقوي كوجا تذكر لقى سيو ضد باجرا
iska dhibaataysan wallahi iska xanuunsan xanuunadu xanuunku ma xanuunka jirka uu ku dhaca gaalba ii shaqeynay waayo gaalba u shaqeeya bay ka helayaan waxaan maanta calaamadaha aanu samaysanay wax kale ma waa solidarity amba taageero aan taageerno isbedelka sida aynima taageerayno haddii iyaguna ay noqdaan sheekadii bas kursiga un ka qaado ma yeelayno isbedelka walaaca nagu dhalinaya dadka reer Djibouti dhibaatada ani maanta alxamdulillah dibadda ka jooga waan iska shaqaystaa alxamdulillah waxaan doonayaa in isbedelkaasi horta si degdeg loo sameeyo waxaan kaloo xasuustaa meesha baabuurta lagu meedho inkan soo ka xumay ninkaas waa nin saaxiibka aan aqaan haddana markuu furayo waxay iga yiri gaal baan France uga yaray wax gaal uga yaray waxay dhalinyarada reer Djibouti waa joogtay may gaal ba ii jeereynaya markaasi waa in horta la fahmaa shaqo la'aanta waxaan isku abuurayno waa shaqooyinku ina buura sameyn jiray ina buura wuxuu lahaa jiray xitaa kuwa mukhallis ah amba loo yaqaano xarigle oo suurtiga joogo u soo sameeya hindida iyo carabta iyo dadku keeno u soo sameeya karitroshega suurtiga marka la doorto wasaaradda arrimaha gudaha suurtiga waa in la eega inta dad karitroshe loo sameeyay ee shaqooyinkii dadkii reer Djibouti ay qaban lahaayeen qabanaya laga siiyay ha sugin ba shaqooyinka dambe dib loo abuuri doono shaqooyin baa jira imikada dadka reer Djibouti ay qaban lahaayeen dad ajaanib la siiyay waxaan kaloo arkay company waxaan tagay markaan joogay Djibouti waxyaalahan waxa inagu sheegay waxaan anigu aan qoran jiray markaan arkay note baa ku qoran jiray saanu iloobin meesha la yiraahdo maartay porka Djibouti ee waliba baata Soo Franska nin baa degan nin baa ka shaqeeya meesha wuxuu degan reer Tanzania shaqa meesha laga siiyay shaqa laga siiyay keen amba Soomaaliya ka ibade saan u fahmo meesha uu wuxuu bas tira waxaad soo samaysanaysaa oo kaari tranche sida u samaysanaysaa keen English buu ku hadlay warda ku reer Djibouti jaad u baad u qaadi buu loo ku soo sameynaya buu وكا لكن واحد وكسراتين قف الرير Djibouti markuu shaqada helo dadkiisu gelinaya wada reerkiisa beel uga dhigaya wadankii buu galay lacagtaas kama baxayso wadankii walaalayaal waxaan doonayaa inaan arayka maanta aan ku soo gabagabeeyo inta mawduucyo kalena sida noo caadihay waan ka hadli doonaa ujeedadaydu maaha wax kale oo waxaan doonaynaa inuu isbedel jiro inaan baraarujino dadkeena maaha shicibka uun kuwa u dhowdo maalqabayaasha war ilaahay ka cabsoodo dawladda ulma maalqabayaashu xitaa dhibaatada way ka qayb galaan carabta hadda u fiirsatay deebeeka markay shaqa u soo baxdaba Yaman bay ka keentaan maxaq baa safaaradaha Mareykanka safaaradda Mareykanka sheegay nin kasta oo safaarad Mareykanka ee dawladda Mareykanka u fadhiya xaafadiisa habla xabashiya ubadka u ilaaliya karitroshee baa looga soo sameeyaa suurtiga taawa in la bedela والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.